بوليسكا Soomaaliyeed waxay hariyeen diyaar u yihiin difaaca dalkooda inay ka qayb qaataan habeen iyo maalin waa hooyo xanaanaysa guri waa hooyo xanaanaysa xafiiska waa hooyaha haysada guudiyada وانا مدحوينه gabdhaha saraakiishu waa maskaxda hogaamisa ciidanka booliiska Soomaaliyeed waana saraakiil u jooga u tafaxiran had iyo jeer difaaca dalkooda ayagoo askarta ku baraarujiya goob kasta ay joogaan si shaqada loo xoojiyo madaxweyne waxa salaanta ku siinaya waa horinta koowaad ee saraakiisha booliiska Soomaaliyeed aku dhaxalay fikirka wanaagsan ee taliyaha ciidanka booliiska madaxweyne waxa ku xiga oo ah hoggaanka xafida ama ilaaliya dhaqaalaha dalka ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u tababaran yihiin kastamyada dekedaha iyo dhammaan goob kasta oo kastam dawladdu ku leedahay sidii loo ilaalin lahaa dhaqaalaha dalka si sax ah inuu gaaro bangiga dhexe ee dawladda madaxweyne salaanta diyaar ay u yihiin guud ahaan dalka laakiin waxa inoo xiga madaxweyne ciidanka taraawiishta booliiska Soomaaliyeed oo kugu soo wajahan goordhow waxa kaloo ku jira ciidanka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ama taraafikada madaxweyne ciidanka ilaalinta canshuuraha waa kuwa u tababaran maamulka iyo xafidaadda dukumentiga dhaqaalaha booliisku ma qaada dhaqaale iyo canshuur laakiin wuxuu ilaaliyaa dukumentiyada dhaqaalaha inay si sax ah u tagaan xafiiskii ku shaqada lahaa madaxweyne markaad aragto shaatiga cad iyo surwaalka madow waxaad xasuusanaysaa taraafikada waxay ka mid tahay hoggaanka haya ama xafida hantida iyo shacabka inay kala nabad galaan si loo yareeyo shirarka si loo ilaaliyo xafidaadda hantida gaarka ah shacabka Soomaaliyeed iyo baabuurtooda inay kala nabad galaan waxa u taagan taraafikada sidii loo ilaalin lahaa difaaca dadka iyo hantidooda wuxuu laamiga u taagan inuu kala badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed si ay si nabad ah ugu maraan wadooyinka baabuurtoodana loogu ilaaliyo sharciga loona baro shuruucda kala duwan ee wadamarista waana hoggaanka nabadgelyada wadooyinka waxa inoo xiga cigaalka markaad aragto waxaad xasuusanaysaa sayidkii وانا تراويشت ciidanka booliiska Soomaaliyeed waana xooga ciidanka booliiska Soomaaliyeed madaxweyne waxay u tababarayeen sida militariga waxayna ka qayb qaataan difaaca dalka goob kasta oo ay joogaan waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan dalka iyo dadka waana madaxweyne taraawiish
mudada madaxweyne lagama dhergo ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waa kuwa professional gaarka u tababaran waxay isugu jiraan xirfadley leh xirfadda maamulka difaaca dalka forensiga ama baarista waxyaabaha laga helo goobaha dambi ka dhaco marag muujinta dhammaantooda waxaa la isku yiraahdaa joint investigation team ama JET sidoo kale waxaa ku jira xirfadleyda miina baarista ciidanka birmadka booliiska Soomaaliyeed oo ayagana ah ciidanka loogu talagalay inay ka hortagaan qallaasooyinka rabshadaha ay abaabulaan dadka leh ujeedooyinka gaarka ah ee aanan u adeegaynin mabaadi'da guud ee qarankayaga mudada madaxweyne waa ku mahadsan tahay in maanta mar kale aad fagaaraha December ama 20 December noo soo istaagto gaadiidka ciidanka booliiska Soomaaliyeed bilowday ay ugu horeeyaan kooxda gaarka ah ee mootooyinka